إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidii kolley caadada iyo dhaqankeenuba uu ahaa marka sheekhu darsiga dhammeeyo su'aalaha dadweynuhu ay soo gudbiyeen ayaynu weydiin jirnay. laakiin kolley su'aalo badanna maanta waa la soo gudbiyey. sidii horena sheekhu uu u iclaamiyey su'aalaha waqtigoogu way koobnaanayaan oo waxaan qadaraan 10 daqiiqo ka badnayn ayay kolley noqonayaan. marka waxaynu siday u kala horeeyeen ee dadku ay u soo kala horgudbiyeen ayaynu ku bilaabi doonaa. qofkii su'aashii maanta uu soo gudbiyey aanina la weydiin sheekha arka beritoole insha Allah la weydiinayo waqtiyada dambe sidaa ula socdo. su'aasha koowaad ee aynu maanta ku bilaabaynaa waxa weeyaan su'aal xidhiidh la leh soomka. saa'ilkani waxa uu yidhi qofka weyn ee aan awoodi karayn soomkii fidyada laga bixinayo miqdaarkeedu iyo qadarkeedu intee buu leegyahay? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قفك وين الداء وقيد سومي كرواي iyo qofka qaba xanuunada inta badan saloo bartayaan laga bogsan isla markaana dad miir qaba waliya asaasiq iyo waxaas aanay ku dhicin iyaga soomkii Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ka riday waayo ma awoodaan Ilaahayna adoomihiisa ma saaro waxaanay awoodin. laa yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala soomka bedelkiisii wuxuu ku waajibiyey wax loo yaqaano fidya. marka fidyadaasi qadarkeeda si cad looguma sheegin qur-aanka iyo axaadiista nebigaba. waxaa lagu sugay uun waa qiyaas, waxaanan u arkaa wallahu aclam qowlka u raajaxsan ama u xoog badan inuu qadarkeedu yahay mudku waa labadaas sacab oo la isu geeyey oo qofkana gacmihiisu ay dhexdhexaad yihiin muggood ayaa mud la yidhaahdaa. waa Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay icaamu miskiin, yani waxaa ku waajibay inuu yahay miskiin quudintii. qofna intaasi qofka xaaladiisu ay tahay xaaladaha bani aadamka looga bartay intaasi oo raashini marka la kariyo oo ku filaanaysa. mudku haddii garaam loo rogo waa 600 garaam, waa nus kiilo iyo 100 garaam weeyi, waa kiilo waxla. haddii kiilooga markaa la iska dhamaystirana waa fiican tahay. haddii aada siiso raashin bisil oo qofku hal mar uu ka dhergana iyaduna fidyadii waa kuu noqonaysa. qofka la siinayaana waa inuu noqdo qof faqiira oo waxba haysan ama wuxuu haystaa baahidiisa aanay waxba kaga dhacahayn, ama miskiina oo waxbuu haystaa baahidiisii wax ka daboolaya laakiin aan wada daboolahayn. baahida laga hadlayana waa baahida asaasiga weyi. shardina ma aha in afur laga dhigo. dadkana waxaa halays u noqotay qofka weyn aan soomi karin iyo qofka qaba xanuunada aan laga bogsan ee aan soomi karin isaguna inuu qof afuriyo. afurku shardi maaha. afurbuna ayay fidyadu noqon kartaa, cashay noqon kartaa, suxuur bay noqon kartaa. qof aan soomahaynbo soomba aanu ku waajibin oo miskiina ama faqiira cunto aad siisay bay noqon kartaa. waxay noqon kartaa mid aad bixisay soomkii oo dhammaadayba. laba siyaaboodba waad samayn kartaa, inaad maalin walba maalin kasta fidyadiisa inaad bixiso, iyo inaad isla sugto oo marka bishu ay dhammaato uun aada bixiso. culimada qaarkoodna waxay qabaan oo sida madhabka shaaficiyadu yahay mar haddii bisha Ramadaan ay bilataba in la bixin karo. waayo sababtii waa la helo, bilashada bisha Ramadaan baa sababa bay leeyihin. sheeguna hadduu laba sababood leeyaho ta hore la helo waa la samayn karaa, tii dambe weli aan la gaadhin be oo afuritaankii maalinkaa qofku waa afurayay da awgeed ama xanuun awgeed. laakiin sida axwadka xalaal miradku ku jira waa in
dib loo dhigo ama maalin walba maalinkiisa laga bixiyo si uu qofku cibaadadiisa khilaafka uga saaro. lacagna lagu bixin maayo ee raashin baa lagu bixinaya. dadka dabadaad jooga had iyo jeer waxay yidhaahdaan ma hayno dad fuqara ama masaakiin oo aanu siino. marka waddanka ayay usoo diraan, qofkii loo soo diray qofkaasuu wakiil ka yahay, lacagtii loo soo diray waa inuu raashin ku iibiyo. raashinkaasi waxa weeyaan dabeetana dadka uu siiya aynu sheegnay fuqarada ama masaakiinta ah, laakiin lacag ahaan lagu bixiyo maaha. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik. saa-iilkanina waxa uu yihi waa qof dumara, waxaa laygu leeyahay soom bila hore oo ramadaan aanan soomin, bishii ramadaanna way ii soo gashay, marka maxaan ka yeelayaa soomkayga hore laygu lahaa? hadda mar haddii ay soo gashay bishii ramadaan, horta ramadaan tan baad soomaysaa. ramadaan tan baa iska leh soomka hadda la soomayo. ramadaan hore iyo soom qalaa iyo soom sunnaa iyo mar haddii ramadaan lagu jiro ma ansaxayo. soomka ramadaan ayaa waajib oo farala. soomkii hore maxaan ka yeelayaana waxay ku xidhan tahay sababta aada u afurtay eed u soomi weyday ayay ku xidhan tahay. sababtana maad sheegin oo su-aasha kumaad xusin. haddii tusaale ahaan gabadhu ahayd oo sida xaaladaha dumara kusoo noqnoqotee mid xaamila ama ilma nuujinaysa oo naftu ay u baqatay ama ilmaha ay u baqatay awgeed u soomi weyday, fidyay bixinaysaa. intaa hore aynu u sharaxnay ah oo faqiir ama miskiin bay maalin walba quudinaysaa oo mudur raashina ay siinaysa. wax qalaana laguma lahaa sida raajixa waalcilmu cinda allah. haddii sababteed u soomi weyday ay ahayd tusaale ahaan dhiigagii dumara ku dhacaayey sida xaydkii iyo nifaaskii oo kale, soomka qalihiisa ayaa waajib kugu ah marka ramadaantani ay dhammaato. oo caaisha waxay tidhi kaana yusiibuna dalika fanu'maru biqadaai soom walaa nu'maru biqadaai salaa. marka caadadu ay noo timaado waana afuri jirnay, waxaana la amri jiray inaanu qalayno soomka, salaada inanu qalayno lama amri jirin. dhiigga marka umushuna waa la mid, isaguna waa la xukun. marka masaladan laga hadlayo masaa'il kaloo fara badanba. dad xanuun awgii u soomi kari weyday, gaar ahaan xanuunada laga bogsada ah, ramadaantani markay baxday inaad qalayso ayaa waajiba. haddii cudur daar la-aan aad soomka dib u dhigtay weliba kafaarana waa kugu waajibaysaa. maalin walba qalaheedii iyo kafaar oo ah miskiin quudintii baad isku daraysa. haddaad cudur daar la-aan u soomi weyday ilaa ramadaantii kale ay kuu soo gashay. faman kaana mariidan aw calaa safar faciddatu min ayaamin ukhar ayuu ilaahay subxana watacaala yihi. kafaaraduna saxaabaday ka sugnaatay sida ibnu cumar iyo abu hureyre iyo cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna ma jirto. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik. su-aashana saa-iilkani waxa uu yihi bisha ramadaan markay soo gasho badiyaa waxaa aada loo faafiyaa axaadiid fara badan oo la yidhaahdo nebigay sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam ka sugnaadeen, badankooguna tilmaamaya fadliga ay leedahay bisha ramadaan. markaa saa-iilkani waxa uu yihi miyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay inuu bisha ramadaan u qeybiyey 3 qaybood? 10ka hore uu yihi waa naxariis, 10ka dhexena waa dembi dhaaf, 10ka ugu dambeeyana waa xoreyn la iska xoreynaya naarta. xadiidkaasi miyuu ka sugnaaday nebiga sal alla alay slam? xadiiska odhanaya bisha ramadaan awaluhu raxma wa awsatuhu makfira wa aakhiruhu cidqun min annaar. bisha bilowgeedu waa raxmad ilaahay, inta dhaxana waa dembi dhaaf, inta u dambeysaana waa mid addoonka naarta lagaga xoreynayo. xadiiskaasi waa xadiis daciif, weliba daciif jiddana, aada daciif u ah. weliba culimada qaarkood ay dhahdeen waa mawduuco, waa xadiis samaysa. marka xadiis jiro oo nebiga calayh isalaatu wasalaam ka sugnaaday ma aha. isagoo xadiis sugnaaday aan ahayn oo daciif oo cilooyin badan leh, haddana wuxuu khilaafsan yahay axaadiista saxiixa ee nebiga calayh isalaatu wasalaam ka sugnaatay. oo axaadiista saxiixi waxay tilmaamaysaa
in habeen kasta oo bisha Ramadaan kamida Ilaahay uu dad naarta ka xoreeyo walillaahi utaqaa min an-nar rasuulku wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad buu naarta ka xoreeya Ramadaan dhexdeeda wadaalika fi kulli layla habeen kasta arintaas way dhacdaa xadiiska daciifkina muxuu leeyahay 10 ka dambe naarta la iska xoreynaya xadiiska saxiixina wuxuu leeyahay habeen walba Ilaahay dad buu naarta ka xoreeya saasoo kale maghfiradu iyo dambi dhaafku waa mid joogto ah ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه qofka sooma Ramadaan isagoo rumaysan Ilaahayna ajar kaga doonaya waa loogu dambi dhaafa Ilaahay raxmadiisuna maalin waliya habeen kasto bisha Ramadaan kamida waa soo degaysa marka xadiiskaasi hadduu xataa ansixi lahaa macnihiisu ma noqdeen 10 hore dambi dhaaf ma jiro iyo naar ka xoreyne 10 dhaxana 10 hore 10 dhaxana raxmadi ma jirto iyo naar ka xoreyne 10 dambana raxmad iyo dambi dhaaf midna ma jiro naar ka xoreyn ba jirta marna macnihiisu saama noqon xataa hadduu ansixi lahaa macnuhu wuxuu noqon lahaa loo fasiri lahaa uun Ilaahay raxmadiisa iyo dambi dhaafkiisa iyo naar ka xoreyntiisu habeen iyo maalin kasto Ramadaan kamida waa jira laakiin sidaas uu ugu kala badan yahay uu macno noqon lahaa wallahu a'lam su'aasha ugu dambaysa ee aynu ku soo gabagabeynayna waxay tahay saa'ilkani waxa uu yiri hadii maalin Ramadaan anigoo sooman aan xanuunsado kana cabsado xanuunkaasi inuu dhibaato xubnahayga jirka uu ku keeno may banaan tahay inaan soomkii jabiyo xanuunku wuxuu kamid yahay waxyaabaha qofka u ruqseeya u baneeya inuu soomkii uu iska daayo haddii isagoo soomana uu ku dhacana inuu afuro sida aad soomka uga tagi karto xanuun awgii adoon weli aan bilaabin ayaa adigoo sooman hadduu kugu dhacana aad uga tagi kartaa oo aad macna isaga afuri kartaa إلهي سبحانه وتعالى وحده فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى qofkii xanuunsanaya ama bas socdaala afure ruqsada qaata maalmo kale qaleyntoodun baa lagu leeyahay maalmo kale inuu soomo oo maalmihii hore qallow ah ayuun baa waajib ku ah laakiin xanuunku waa inuu yahay xanuun aanad ka soomi karahayn waxaa la isweydiin karaa maxaa qiyaas iyo miisaan u ah xanuunka qofka u banaynaya inuu afuro oo soomka iska daayo haddii xanuun qofku uu ka baqanayo hadduu la soomo inuu dhintaba shaki ma leh qofku naftiisa inuu dilo looma ogola ama uu ku sameeyo wax sabab u noqon kara inuu dhinto walaa taqtuluu anfusakum buuri ilaahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka waxaa la mid ah haddii uu ka baqayo xanuunkaasi inuu xubnaha qaar waayo hadduu soomo isagoo xanuunkaa qaba wuxuu ka baqaya inuu xubnaha qaar waayo amaba se inuu odee lugi ay qalasho ama gacan ama inuu manfacadooda waayo sida inuu dhegabeelo ama uu indhabeelo ama inuu waashaba ama wuxuu ka baqanayaa hadduu soomo xanuunkaasi inuu ku raago oo bogsashada ay dib u dhacdo ama uu kusii kordhaba laakiin xanuunkii qofku isagoo qaba hadduu soomo oo aanu soomku waxba yeelahayn oo hadduu soomo dhiman maayo xubno waayi maayo manfacadoodii waayi maayo xanuun kusii kordhi maayo bogsasho dib u dhici mayso hadduu soomiyo haddii kale xaaladiisu waa isku mid xanuunka noocaasi waa xanuun iska fudud oo qofka u ruqsayn maayo inuu waxa weeyaan afuro oo soomkii uu iska daayo way qofka xanuunsanaya waxaa soomka looga daayay dee waa dhibaato uu soomku u geysanayo xanuunka uu qaba awgii marka haddii isagoo xanuunsanaya marka uu soomo aanu soomkii wax dhibaataba u geysanahayn caajilan aw aajilan dhibaato hadda markaas iyo mid soo socoto la filayo toona ruqso uma haysto qofkaasi inuu afuro xanuunbaha iyo wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد